dalalka reer galbeedka ayaa u muuqda inay hal mowqif ka wada istaageen weerarka ay Xamaas ku qaaday Israa'iil iyo sidoo kale duqeymaha aargoosiga ah ee Israa'iil la beegsatay Gaza. hase yeeshee dalalka Islaamka oo si guud taageero furan u muujin jiray Falastiin ayaa si taxadar looga hadlay dagaalka hadda socda ee Israa'iil iyo Xamaas. mowqifka ay dalalka Islaamku ka istaageen isku dhaca Xamaas iyo Israa'iil ayaa u muuqda mid ay ku kala qaybsan yihiin. dhammaan dalalkani waxay doonayaan dal madax bannaan oo Falastiin loo aqoonsado sidii awalba looga bartay. waxay u muuqdaan inay ka dhowrsanayaan dhaleecayn adag oo Israa'iil u jeediyaan. inta badan dalalka muslimiinta marka laga reebo Iiraan waxay u muuqataa inay ka fogaadeen inay Xamaas la saftaan. weerarka Xamaas ayaa ku soo aadaya xilli uu jiro dadaal lagu doonayo in lagu wanaajiyo xiriirka Israa'iil iyo dalalka Islaamka. sanadkii 2020 Israa'iil ayaa laba dal oo kale Imaaraadka Carabta iyo Bahrain la saxiixatay heshiis si loo dhiso xiriir rasmi ah oo labada dhinac u dhaxeeya. ururka iskaashiga Islaamka oo kan ugu weyn ay ku mideysan yihiin dalalka muslimiinta ayaa si ka fiirsasho leh uga falceliyay inta ay dhaleecayn xooggan u soo jeedin lahaayeen Israa'iil. waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay falka ciidamada Israa'iil ee ku sugan dhulka la haysta ee Falastiin. Imaaraadka Carabta oo isaguna xubin muhiim ah ka ururka ayaa taas beddelkeeda cambaareen dusha uga tuuray ururka Xamaas kuna eedeeyay dagaalka hadda socda. Turkiga oo inta badan afka ka weerari jiray Israa'iil ayaa hadda si taxadar leh uga jawaabay. waxa uu walaac ka muujiyay colaadda ka dhaxaloosan Israa'iil iyo Xamaas. waxa uuna codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan nabad loogu soo dabaalo deegaanadaasi. Maleeshiya ayaa dhankeeda walaac ka muujisay isku dhaca Israa'iil iyo Xamaas. waxa ayna sheegtay inay ka niyad jabsan tahay dhimashada ka dhalatay iska horimaadyada. Indonesia oo ah dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka ayaa sidoo kale walaac ka muujisay colaadda gacanka hadalka ee u dhaxaysa Israa'iil iyo Xamaas. waxayna ku baaqday in si degdeg ah loo qaboojiyo rabshadaha. mowqifka Bakistaan ee arrintan ayaa u muuqda mid iska bedela sidii markii hore. horaan kamaysan hor imaan weerarka Xamaas mana taageerin argooshashada Israa'iil, balse hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Bakistaan waxay si cad u taageertay Falastiin.